asxaabta soo dhawaada maanta fiidiyowgan aad ayuu muhiim u yahay maxaa yeelay qudaar aad iyo aad ugu wanaagsan caafimaadka ayaa waxaan ka hadlaynaa waxtarka ay noo leedahay si kasta oo loo isticmaalo sida salaato macaan looga samaysto oo ironka kuu siyaadinaysa ayaan ku tusaa biidni allah. haddaba aan fiidiyowgeena gudagalno. bismillaah, allahuma salli calaa sayidina maxamed. kow waxaan ku hormaraynaa waxtarka uu noo leeyahay geedka loo yaqaano baatiraafka waa geed nafaqa caafimaadka u fiican. waxtarka koobaad wuxuu u leeyahay beerka. saa ogtihiin beerka asaga ayaa jirka wuxuu mas-uul ka yahay inuu ka saaro sunta, sidaa daraadeed baatiraafka waxaa ku jirta maadada loo yaqaano bitaliin. maxay sameysaa? waa maadada saas markaa u fiirisid geedkan fiiriya waxaa warwareegsan midabkiisa ayay mas-uul ka tahay, sidoo kale waxtarkiisa dhan ayay mas-uul ka tahay. waxay ka caawinee beerka inuu jirka uu shaqadiisa si fiican u qabto. sidoo kale geedka loo yaqaan baatiraafka aad iyo aad ayuu wuxuu ugu wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha maxaa yeelay qani ayuu wuxuu ku yahay potassium, feebaro, antioxidant aada u sareeya. geedkan wuxuu u fiican yahay baatiraafka la yiraahdo dadka qaba sokorta, dadka qaba dhiigkarka oo dhiigkarka wuu kaa dejinaa. sokorta wuu u fiican yahay waayo waxaa ku jira feebaro aada u badan. sidoo kale saa ogtihiin geedka baatiraafka ah wuxuu qani ku yahay karbohaydraad, laakiin waxba kaama dhibayaan oo feebarada ku jira ayaa aada u badan. laakiin haddaad sokor qabtid sidiisa ku cun, salaato ka sameyso, cabitaankiisa ma kuu fiicna, hana badsanin. haddaad sokor qabtid, dhiigkar qabtid, wax kasta dhakhtarkaaga weydii intee ka cuni karaa waa inaa weydiisid. sidoo kale sidee horta waxtarkiisa dhan uu noo soo socdaa insha allah iyo waxyeeladiisa. marka rabtid inaad salaato ka sameysid, koow waa iska dhaqee, tan labaad waa soo diireysaa. markaasaan oo kale usoo diirtid waxaa sameynee laba waxyaabood ayaa kuu banaan. inaad biyata dabka saartid oo ku shubtid dabooshi, aad damisid 2 daqiiqo kadib dabooshid, kadib wuu bislaanaa intuu biyahaas huurkooda bislaynaa, ama 7 daqiiqo 10 daqiiqo camal dabka sidaan oo kale usoo saar. horey ka isticmaal, si kasta u isticmaal. geedkan nafaqo waaye. waxaan ku tusaa sidaa salaato macaan uga samaysan lahayd, ilmahaaga u jeclaysan lahaayeen. hadda ka horna waa soo geliyey, haddaadan kii hore arag, hadda waa soo geliyey. dhowr daqiiqo dabka soo saaray, biyaha ka miiray. xataa biyaha aa ka miirtay waad u baahan kartaa. waxaa sameynaya horta kow saan waa ku cuni kartaa. halkan waxaan kusoo shubay basbaas iyo toon. marka aad rabtid inay ilmahaaga jeclaystaan, haddaad tahay qof aan gaas qabin ama se aan waxyaabo xanuuno kala qabin, aad ayuusaan haddaa u samaysatid u macaan yahay. gabdhaha waxay ku dhahayaan farwi iga wasaqeynaa. geedkan waa nafaqo, ka faa-iideysta, waana daawo, xataa waa rooseeto lacag la-aana. bishimaha wuu ku gaduudinayaa. milixasaa jeceshaha ugu darsanaysaa. sidoo kale geedkan timaha waxyaabaha gaduudiya ayuu ka mid yahay, oo waxyaabo kale ayaa lagu daraa. tinta kalarba uma baahnid, kalar dabiiciya ayuu haystaa. liindhanaan ani wax badan ma sameynayo, jab iyo bar liindhanaan kusoo daraa. liindhanaanta ayada dhan waa vitamin c haddii aysan ku dhibayn oo aada gaas qabin. saan salaatadan u sameyso waa idinkula talinaa, caruurtiina way jeclaysanaysaa. geedkan wuxuu aada iyo aada ugu wanaagsan yahay dadka aneemiyada qaba maxaa yeelay geedkan waxaa ka buuxa weliba kuwa ay birtu ka dhiman tahay, waayo qani ayuu wuxuu ku yahay waxa loo yaqaano iron ama sabirta ayaa ka buuxda. waa soo shiidaysaa ama waa soo tumaysaa, cajab waaye. haddaa saan u samaysatid macaankiisa ma malayn kartid. hal mar ayaa waxaa sameysanaysaa in badan. hadda waa kana. sidoo kale waxaa idin tusaa si kasta oo loo isticmaalo biidni allah. waxaan geedkan aada iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay hooyada xaamilka maxaa yeelay qani ayuu baatiraafku wuxuu ku yahay. folic acid baa ku jira, irona ku jira, feebaro, caloosha wuu ku socodsiinaa. marka hadda kan salaatadan diyaar waaye. best way oo aad salaato uga samaysatid basbaas leh oo caruurtaada jeclaysanayaan waaye. markaasaan usoo samaysatid, haddii aadan ahayn qof oo gaas qaba ama se sokor dhiigkar qaba, dhiigkarka waxyaabaha kuleylka ah way ku kiciyaan. milix baa ku darnay, waxaan ku darnay khal,
sidoo kale kasoo qaad geedka dabacaseeyaha loo yaqaan marka la huurinayo hadda ka hor waa soo geliyey mukhalalkan soo geliyaa ka arki doontaa qaadaa ku dareysaa kalar bay siinee macaanu noqonaa kalarkiisa wuu cadyahay dabacaseeyaha marka la diiro saa ogtihiin qaado basbaaskan oo laga sameeyey baatiraafka ah ku dareysaaye wuxuu noqonaa wax kaluu noqonaa fiiriya hadda kalarkiisa isu bedelay subxaan allah. sidoo kale biyihiisa waxaa sameyn kartaa strawberryga aa ku dhex darsanee cajab waaye roomaanka ku darsan kartaa gaduudka dhiga kasoo qaad cunto waxaa sameysatay dalac bilaasha waxaa soo qaadanaysaa haddaad tahay qof sokor qabo oo kale ama dhiigkar isagoo caadi ah saas ugu darsanay kii aan soo karinay in yaroo basbaaskana waa ku darsanay ama qof caadi haddaad tahay basbaaskaa ka buuxsanay way ku cunsiinay ama bariid ama baasta wixii aa haysatid. geedkan nafaqo waaye caloosha ayuusu kuu socodsiiya laakiin haddaa aragtid kaadidaada saxaradaada gaduuda xanuun ha u maleyn waa midabkiisa. runtii geedkan nafaqo waaye wuxuu u leeyahay waxtar aan lasoo koobi karin waaba saaxiib ayuu wuxuu leeyahay wadnaha oo maxaa yeelay waxaa ka buuxa potassium waxaa ka buuxa febaro waxaa ku jira antioxidant aad iyo aad u xoog badan. geedkan wuxuu sameeyaa wuxuu yareeyaa wuxuu hoos u dhigaa miisaanka maxaa yeelay geedkan waxaa ku jira waxa loo yaqaan wuu ku caateyna feebaraha ka buuxa abuteedka ayuu kaa xirayaa sidaa daraadeed cunto badan ma cunaysid markaa wuxuu sameynayaa uu ku fiican yahay. sidoo kale geedkan maasha allah aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay caafimaadka oo saan fiiriya hadda saana salaato ka sameysan asagoo basbaaskiila cune cuntada ku darsane waa geed asaga dhan waxaa waaye nafaqo socota waaye subxaan allah oo aad iyo aad ayuu wuxuu u wanaagsan yahay dadka ay xanuunayaan murqyada aad ugu wanaagsan yahay exerciseka dadka sameynaya geedkan aad iyo aad ayuu ugu wanaagsan yahay oo waxa uu ka caawinaa maxaa yeelay qani ayuu potassium magnesium ayaa ka buuxa marka uu u fiican yahay. geedkan waa idinkula talinaa haddaba waxyeelo ma leeyahay geedkan ayaa isweydiina loo yaqaano baatiraafka dadka oo ugu jiro dhagaxyada haddaad tahay wax badan ha isku cunin waxyeelo kale geedkan male qofka sokorta qaba wuu u fiican yahay laakiin adiga oo daawo qaadanaya dhakhtarkaaga la tasho ka faa'iideysta geedkan nafaqo waaye. videogana like dhahaya sii sheer gare